بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaanba allah awoodda la dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurka sanfareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo khamiisa 26 November 2020 cudurka coronavirusku waa uu jiraa weli iyadoo dhinaca kalena digniino ay jiraan welibana ay barbar socdaan arrimoyada diilale oo ah in tallaaladii la diyaariyey oo markaasi ay suurtagal tahay bisha Decemberba in laga bilaabo meelo badan oo dunida ka mid ah markaynu haddaba eegno qaaradda Yurub ayaa waxaa maamulayaashooda ay ka hadlayeen saacadihii ugu dambeeyey qaabka iyo siday u qorsheynayaan dadkooda inay isugu diyaariyaan marka la gaaro ciidda Christmaska oo iyadoo ah bisha December ee soo socota aakhirkeeda arrintaas ayaa waxay culays weyn ku ahayd guud ahaanba reer Yurub maadaama cudurka coronaviruska mawjadiisa labaad ay si aad ugu badatay wadamada badan oo qaaradda Yurub ka tirsan waxay isaga mid ahaayeen arrimo badan oo ah in la xadido dadka isu imanaya tiradooda iyo weliba in la yareeyo marka la fiiriyo socdaallada meelaha dhaadheer taasoo ay u muuqatay yiraahdeen inay dhici karto in dadku ay markaasi cudurka isqabadsiiyaan waddanka Jarmalka oo ka mid ah wadamada arkay mawjada labaad iyo dhibaatadeeda ayaa ra'iisul wasaarada dalkaasi Angela Merkel waxa ay kulan muuqaal la yeelatay 16 hogaamiye goboleed ee ka tirsan federaalka Jarmalka waxay ka wada arrinsadeen arrimo ku saabsan qaabka iyo sida loo sii kordhin lahaa xanibaadda iminka socotay 4 toddobaad ahayd in la gaarsiiyo ilaa 20ka bisha December laakiin waxaanay meesha ka saarin inay lagama maarmaan tahay dadka Jarmalku sida dadyowga kale ee dunida inay ciidda Christmaska is arkaan laakiin la xadidayo tirada la is arkayo iyo weliba goobaha la isku arkayo dadka laftooda inay ka fakaraan taa macnaheedu maaha ayay tiri haddii dadku ay yihiin dad markaa loo fasaxay inay isarkaan inay sidii doonaan isu arki karayaan laakiin tiro kooban inay isarki karto marka laga hadlayo guri ilaa guri laakiin wadamada qaar oo Yuruba ayaa waxay qabaan fikir ka duwan kaas oo ah dadku inay intaa in ka badani qoysaska ama faamiladu ay isarkaan waddanka Spain oo kale oo kamid ah wadamada sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeeshay mawjadiisii koobaad iminkana kamid ah wadamada 1 milyan uu kor u dhaafay dadka cudurku uu ku dhacay ayaa waxay qabaan tirada la yareeyay ee 6 lagu koobay in laga dhigo ilaa iyo 10 gobolada kala duwan ee waddanka Spain ayaa qoloba fikir qabta laakiin ujeedku waxa uu yahay in ciidan ay u dabaaldegaan dhinaca kalena inay is ilaaliyaan waxay qorsheeyeen reer Yurub intooda badan marka laga bilaabo 23 bisha December ilaa 1 bisha January oo ah dabaaldega sanadka cusub ee 2021 in dadku ay noqdaan kuwo isu yimaada oo halka ku wada ciido oo ku wada farxa laakiin meelaha qaar ayaa waxaad moodaa maalmuhu in inta ka yar yihiin oo la soo koobay laguna soo koobay ilaa 5 maalmood oo u dhaxaysa 23 ilaa 27 bisha December Talyaaniga ayaa kamid ah wadamada ka hadlay qaabka dadkoodu ay u dabaaldegayaan iyadoo dhinaca kalena Talyaaniga si aad loo xanibay gobollo badan oo ka tirsan maadaama uu ahaa dalkii ugu dhib badsaday mawjadii koobaad ee horaantii sanadka cudurka coronaviruska mawjada labaadna iminka la arkayo tiro aad u fara badan inay ka jirto gobollada qaar waxaa jira wadamada Talyaaniga oo kale Faransiiska oo kale Austria oo kale inay ka hadleen arrinta ku saabsan xilliga ciidda Christmaska iyo dadka oo mararka qaar taga goobaha lagu ciyaaro ciyaaraha kala duwan ee dhinaca barafka taasoo laga deyriyay sanadkan oo loo arkay in goobahaas ay xirraadaan intooda badan mar haddii cudurku uu jiro isu imaatankana la yareynayo arrimahaasi oo dhan waxay ahaayeen arrimo ay soo qaadeen guud ahaan reer Yurub oo ah in weliba ay u dhiman yihiin maalmaha soo socda iyo inta toddobaad ee ka dhiman inay soo saari karaan awaamiir kale iyo nidaam kale oo ay dadku isku arki karayaan Faransiiska ayaa madaxweynahooda waxa uu ka dhawaajiyay in toddobaadka soo socda dhamaadkiisa la furi doono dukaamada iyo sinimooyinka iyo tiyaatarada riwaayadaha lagu matalo iyadoo qiil looga dhigay in ay yaraadeen maalmihii ugu dambeeyay tirada soo ridashada dadka marka la fiiriyo cudurka uu soo ritay iyo dadka ku dhintay ee dalka Faransiiska 24 saac ugu dambeeyay waxay sheegeen in tirada oo soo yaraatay maalmihii ugu dambeysay celcelis ahaan maalintii la arkayay ilaa 5,000 oo ruux oo Faransiiska oo cudurka laga arkayay UK ayaa qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay waxay ahaayeen kuwo isku raacay salaasadii gelinkii dambe in dadku ay isu socon karaan marka laga bilaabo 23 ilaa 27 December si ay ciidda Christmaska ay wada ciidaan laakiin afarta hogaamiye waxaanay meesha ka saarin marnaba in dadku ay feejignaadaan oo dadaalaan iyadoo dadka is arki kara ay yihiin ilaa iyo 3 guri oo dadkuna aanay badnayn laakiin dadka qaar ayaa waxay qabaan fikir ah in dadku inta ay ka bataan laakiin qolyaha caafimaadka iyo maamulka sare ee UK arrintaasi waa ay ka digayaan oo waxay leeyihiin hal raaco nidaamka la soo rogay
afarta qaybood oo UK dadku qayb ka mid a intay ka safraan ayay qayb kale tegi karaan tan iyo inta ciidda lagu jiro laakiin inay haddana digniin xoog leh la soo gudbiyey ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay dhibaato tahay in dadku ay kulmaan laakiin haddana la eegayo doonista iyo dabaaldegga ay sanad walba u barteen iyo ciidda Christmaska waxa kaloo ra-iisul wasaare Boris Johnson uu shaaca ka qaaday inay tahay go'aanka shakhsiga gaarka haddii ay booqanayaan dadka waayeelka iyo goobaha ay joogaan iyo haddii kale laakiin reer UK waxay isfareen oo ay ku ballameen in dadaal xoog la sameeyo oo la ilaaliyo ka horna awaamiirta la raaco wixii markaa ka dambeeyana lagu dadaalo sidii mar walba isha loogu hayn lahaa cudurkan sidii looga fogaan lahaa wararka ka imanaya dhinaca dalkaasi Chile ee Latin America ayaa waxay sheegayaan in dalkaasi xuduudihiisu ay xiraayeen 8 bilood ee la soo dhaafay iyagoo iska eegaya cudurku inaanu dhibaato gaarsiinin iminka ay dib u furayaan xuduudahoodii dadka iyagoo booqashada ku imanaya adduunka ka imanaya markaasi loo ogolaaday madaxweynaha waddanka Chile Sebastián Piñera ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dalkiisu uu waday qorshayaal tallaabo ilaa tallaabo oo uu ku doonayay inuu isha ku hayo cudurka in laga hortago dhinaca kalena dalka waqtigii la furi lahaa marka la gaaro lagu dadaalo madaxweyne Piñera waxa uu mahad gaar ah u jeediyay dhammaan dadka reer Chile oo uu sheegay way u dhabar adeegeen wayna ku dadaaleen inay iska kaashadaan sidii cudurkan aafadiisa ay isaga fogeyn lahaayeen iyo weliba shaqaalaha caafimaadka ee dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha uu ku tilmaamay kuwa iyagu har iyo habeen aan ka daalin dadkooda inay daweeyaan oo ay la danqadaan madaxweyne Sebastián Piñera waxa uu sheegay in dadka reer Chile looga baahan yahay mar walba inay isku duubnaadaan xaaladaha adag markay sidan oo kale u yimaadaanna ay noqdaan kuwa u dhabar adeega oo meel qura uga soo wada jeesta sidii haddaba uga soo jeesteen waddankaasi Chile oo ka mid ah wadamada Latin America ee saameynta cudurka uu ku yeeshay dadka uu ku dhacay guud ahaanba waxaa lagu sheegay nus milyan amaba lamida 500 oo kun oo ruux waxaana Chile uga dhintay cudurka coronavirus-ka guud ahaanba maalintuu bilowday ilaa maalinka maanta ilaa iyo 15 kun oo ruux ugu dambaystiina England ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan xilligii xanibaadda ama lockdown-ka lagu jiray guryaha la joogay oo aabbayaashii hooyooyinkii carruurta ay sor fadhiyeen in isdhibaataynta qoysasku ay aad u badatay sida booliska warbixintiisu ay sheegayso laakiin qolyaha iyagu tirakoobka ee England ayaa waxa ay sheegeen arrintaasi inay caadi tahay iyadoo lockdown-ka ama xanibaadda ka horba la arki jiray inay dadka guryaha jooga ay murmaan oo isdhibaateeyaan qaarkood laakiinse boolisku waxay shaaca ka qaadeen marka laga bilaabo bishii March oo guryaha lagu xarooday ilaa iyo bishii July intii u dhaxaysay ay soo gaareen fariimo iyo warbixino iyo codsiyo ka imanaya dadka oo ay xaalada degdeg ah u soo wacayeen booliska kuwaas oo tirada dadka soo wacay ay gaarayaan 259,324 jeer oo dadku ay kala sheeganayeen ama hooyooyinka laga sheeganaya ama aabbayaasha arrintaasi ayaa waxa ay keentay walaac xoog leh oo ah in dhibaato xoog leh ay dhacdo mar haddii dadku ayagoon is arki jirin inta badan kala mashquuli jiray ay guriga inta badan u badnaayeen ay keentay mararka qaar in dhibaato xoog leh la isgaarsiiyey oo weliba dadka qaar ay dhici kartay in naftooda la seejiyo laakiinse marka la fiiriyo qolyaha tareenada xukuma ama kambaniyada sharikadaha tareenada kala duwan ee England iyo waxaa kulmay qayb iyadoo dhinaca gargaarka ah ee haweenka u danaysa waxaanay ka sheekaysteen haddii ay dhacdo in dhibaato ay ka dhacdo guryaha oo aabbayaashii hooyooyinku ay isqoomaan oo markaasi qof ka mid ah la dhibaateynayo qofkaasina uu guriga ka baxsado isagoon wax tigada haysan uu ku raaco tareen maxaa la samayn doonaa arrintaas ayay waxay sheegeen in qofka dhibanaha ah ee isaga guri lagu dhibaateeyey uu heli karayo fursad uu ku raaco tareenada oo bilaasha oo aan wax lacag ahba yaraatee laga rabin xaqiiqo ayay ahayd arrintaasi inay dhacayso mar haddii guryaha iyadoon hore la isugu arki jirin la isku arkay waqtiyo badan shaqooyinna aan la aadayn iskuulna aan la aadayn taasina ay keentay isafdhaaf iyo muran ka dhex dhaca dadka qaar dadka Soomaaliyeed dabcan waxay ka mid ahaayeen dadkaas iyagu dhibaatooyinku ay dhex mareen walow haddana aanan maqal marka la fiiriyo guud ahaanba dunida iyo goobaha xanibaadda iyo coronavirus-ku uu ka jiray dad dhibaato isgaarsiiyo oo Soomaaliyeed laakiin dabcan hadallo qadafa way iska gaareen aabbayaal iyo hooyooyin aan horey fursad isugu helin laakiin xilligii xanibaadda ama lockdown-ka iska soo horjeedkii badnaa ee dhacday in hadallo la gocanayay markaasi la is yiraahdo guud ahaanba xaaladda adduunku ma qumana marka la fiiriyo cudurka coronavirus-ka waa sii siyaadayaa marka la fiiriyo tirada soo ridashada iyo dhimashada iyadoo weliba ay ugu daran yihiin wadamada Americas la isku yiraahdo iyo weliba qaaradda Yurub laakiin waxaa la rajaynayaa tallaalada kala duwan ee la ballan qaaday inay noqdaan kuwo iyagu waxtar leh marka la bilaabo sida la sheegayo qiyaastii bisha December ee soo socota iyadoo ay sheegeen sharikado kala duwan inay iyagu tallaalkii markaasi ay bulshada adduunka u hayaan
marka haddaba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ah ee cudurka coronaviruska waxaa fududeeya sharikadda dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliyana guud ahaanba la geynayo lagana keenayo waa sharikadda lagu magacaabo Parcel Host oo fadhigeedu yahay UK xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka haddaad diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxaa kaloo uu bulshada u hayaa guud ahaanba taleefanada noocyada kala duwan ee kuwii ugu dambeeyey iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949512877 dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay is ilaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan